بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan waa NT في qodobada warka duhurnimada waxaa kamid ah James Iswin oo shaaciyay halis aad weyn ay ka jirto Soomaaliya. taliye Odwa Yuusuf Raag ayaa waxa uu ku fiday shacabka iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. laba dal oo Yurub ah oo la ogaaday inaysan si sharci darro ah ugu kalluumaysteen Soomaaliya. Sacuudiga ayaa xayiraad duulimaad waxa uu ku soo rogay arrin dalal ay kamid yihiin Soomaaliya. qodobada ayaa wixii ku nagu soo kordhay ku maqli doontaan warka duurnimo daawad waxaan ka codsanayaa markaas warka aad si shirgelisay adigoo markaas gaarsiina dhammaan saaxiibadooda ku nool daafaha caalamka ku mahadsanid. ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswin ayaa khudbad u ka jeediyay kulan ay golaha ammaanka ay ku yeesheen xaaladda iyo isbeddelka ka dhacay dalka. waxa uu markaasi khudbadiisa uga hadlay doorashooyinkii soo dhamaaday ayaa sheegay in qaramada midoobay ay diyaar u tahay in la shaqeyso dawladda cusub ee Soomaaliya. dhammaan nidaamka qaramada midoobay ee Soomaaliya waa mid diyaar u ah in la shaqeeyo dawladda cusub oo markaas si loo taageero ayuu yiri yoolka ay la wadaagayso caalamka. wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sidoo kale xusay in Soomaaliya aysan wali ka jirto halis aad u weyn taasoo ka dhalatay xaaladda bini'aadanimada ee dalka. danjiraha ayaa tilmaamay in Soomaaliya ay wajahayso xaalad ugu dambeyd dhanka nolosha taasoo ka dhalatay abaaraha markaasi ka jira guud ahaan dalka Soomaaliya xilli roobkii gu'gu aad u yaraaday. xaaladda bini'aadanimada ee Soomaaliya ka sii daraysa dalka waxa uu wajahayaa khatar aad u weyn oo macquul ah in deegaano ay ku nool yihiin 6 bulsho haddii uu qiimaha cunnada uu sii kordho gargaarka bini'aadanimada ee markaasi aan la joogteen ayuu hadalkiisa sii raaciyay. Soomaaliya ayaa hadda waxaa marar badan ku soo laabtay abaar aad u xooggan oo saameysay nolosha qoysas badan oo Soomaaliyeed kuwaasoo ku nool koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya. taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Yuusuf Odwa Raag ayaa waxa uu soo wajahday fadeexad kadib markii uu gabax uu kala kulmay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shalay qiray inuu ciidamadii ugu badnaa ee Soomaaliya tababar lagu qaado dalka Eritrea. waa sida markaas hadalka uu sheegay madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shalay Xasan Sheekh ku wareejiyay xilka madaxtinimada. taliye Odwa Yuusuf Raag ayaa horay ugu jawaabay eedayn uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u jeediyay Farmaajo ka hor inta aan la dooran inuu mucaaradka ahaa oo ku aadanaa in ciidamada la geeyay Eritrea ay beeniyeen isla markaana aysan jirin ciidan Soomaaliyeed oo markaasi dalka ka maqan. Eritrea ciidan loo qaaday anigu ma garanayo wasiirkeennu meel ka keen hadalkaas ma garan hadalkaas waxa uu yiri General Yuusuf Odwa Raag. madaxweyne Farmaajo ayaa khudbadii munaasabadii xilka wareejintii ee shalay waxa uu markaasi shaaca ka qaaday in ciidamo ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku maqan yihiin dalka Eritrea isla markaana ay ka warsuwayeen dawladda cusub ee Soomaaliya. arrintaas ayaa fadeexad iyo ceeb ku noqotay taliye Odwa Yuusuf Raag oo laga duubay been taasoo baraha bulshada markaasi la wadaagayo. muuqaaladii hore markaasi laga duubay ee ku beeniyay in ciidamo ka tirsan Soomaaliya ay ku maqan yihiin dalkaasi Eritrea. madaxweynaha cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud ayaa intii uu mucaaradka ahaa waxa laga diiwaan geliyay haleesyo badan oo markaasi ay ka mid tahay wiilkayga iyo dhiiqa ayaa duwaha kula jirtaa iyo ereyo kale kaasoo markaasi baraha bulshada aad loogu hadlayay. balse hadda waxaa muuqata in Odwa dhiiqidii uu lagu hadla galay oo hadda uu yahay qof ceeboobay isla markaana been sheegay. warbixino markaasi ay daabaceen hay'adda Blue iyo hay'ad kale ayaa shaaca ka qaaday in cadeymo muujinaya kalluumaysatada sharci darro ah oo kalluumaysanaysa dalka Soomaaliya isla markaana laga leeyahay dalka midowga Yurub. warbixinta oo markaasi ay daabaceen Ocean Mind ayaa markaasi tusinaysa dhaqdhaqaaq si sharci darro ah oo kalluumaysanaya dalalka ay kamid yihiin Spain iyo France oo markaasi ka sameysay badweynta India iyagoo markaasi aan haysan wax ogolaansho oo ku saabsan inay ka haysan dawladda federaalka ee Soomaaliya. warbixintan ayaa amaanaysa iyadoo markaasi guddiga kalluumaysatada ee badweynta India ee marka magaciisa la soo gaabay loo yaqaano IOTC ay ku kulmeen dalka Seychelles isla markaana ay ka wada hadleen sidii loo badbaadin lahaa kalluun mid kamid ah kalluunkaasoo markaas lagu magacaabo tuna. noocaas ayaa waxaa kamid ah nooca markaas loo yaqaano tuna ilaa 2015 ay si xad dhaaf ah u kalluumaysanayeen. waxaana hadda loo baahan yahay in la yareeyo 3 meelood si markaasi uu dib ugu soo kabto ilaa 2030 la gaaray ayay ku yiraahdeen shirkooda. wasaaradda kalluumaysiga ee Soomaaliya ayaa xaqiijisay inaysan si waqti kalluumaysiga aysan wasaaradda kalluumaysiga ee Soomaaliya ayaa xaqiijisay inaysan wax shati ay ka haysan
maraakiibta dalalka Spain iyo Faransa. labada dal ayaa cadeynaya in la helay muujin iyadoo Soomaaliya ka kalluumaysanay sanadkii 2017 ilaa 2020 xeebaha Soomaaliya ayaa muddo 14 sano waxa ku shaqeynayay maraakiib ka socotay midowga Yurub oo aan markaasi haysan wax oo markaasi sheegay inay la dagaalami doonaan burcadbadeeda isla markaana magacooda ku sheegay Atlantic. waxaana dawladda federaalka ee dalka Soomaaliya ay howlgalkaasi soo gabagabaysay bishii Maarso 2022 kadib markii ay diiday in waqtiga loo kordhiyo taasoo aad uga caraysay midowga Yurub. Sacuudi Carabiga ayaa xayiraad duulimaad oo lama filaan ah ku soo rogay Soomaaliya iyadoo markaasi dadka Soomaaliyeed ee ka imaanaya dalkaasi ay u safraan dalkaas ilaa amar dambe. marka laga soo tago Soomaaliya 15 kala dal oo liiska ay ku jira ayaa waxa markaasi kamid ah Hindiya, Liibiya, Syriyaanka, Turkiga, Iran, Afghanistan, Yemen, Ethiopia iyo Jamhuuriyadda markaasi loo yaqaan Congo iyo dalal uu kamid yahay Belarusia. go'aankan ay Riyadh ku beegsatay muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa ah mid jahwareer leh sababta la xiriira in Soomaaliya laga warin wax sare u kaca kaasoo ah cudurka COVID-19. go'aankan ayaa hadda istaagay inkastoo dalalka Soomaaliya iyo dalalkaas kaleba ay jawaab ka sugayaan xilliga markaasi ay furayaan ama ay ka dharsugayaan dawladda Sacuudiga. macadda xilliga uu soo gabagabay doon waxaana suurtagal ah in xayiraadda Soomaalida laga qaado ka hor xajka inta aan la gaarin July 2022. go'aankan ayaa yimid ayagoo wasaaradda caafimaadka Sacuudiga ay Sabtidii warisay 14 kamid ah kiisaskaasi cusub oo la xiriira COVID-19 taasoo markaasi 5 jeer ka badan kiiskii la arkay Maarsi Abriil 80 kamid ah kiiskaasi ayaa xaaladiisu ahayd mid halis ah. toddobaadii ugu dambeeyay ayaa waxaa caalamka ka jiray walaac ku saabsan cudur cusub oo markaasi laga wariyay boqolaal dal ah oo markaasi cudurkaasi lagu sheegay in magaciisa leeyahay busbus waa sida ay qoraan qaar kamid ah dalalka caalamka jaraa'idada ka soo baxaan. guud ahaan warka caalamka aad kala socoteen NTV-na maanta waa naga intaa. NTV